sida muuqata Maraykanka diyaar uma ahan inuu ka warwareego cadaynta qorshihiisa ku wajahan maamulka Kiev si kasta iyo wadiiqooyin walba oo maangal ka dhigi karaya taageero iyo cudud military waa ay la garab taagan yihiin bulshada Ukraine oo dagaal 2 bilood ku dhow kula jira maamulka Putin waxyaabaha cadaynaya istiraatiijiyadda duulaan weerarka Ruushka uu ku hayo Ukraine iyo taageerada aan qarsooneyn ee Maraykanka waxa ay banaanka timi kadib markii wafdi culus oo ka socda Maraykanka ay tageen Kiev xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka iyo xogayaha difaaca dalkaasi ayaa dabcan booqasho aan horay loo sii shaacin ku tagay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev waxay kulan dhowr saacadood qaatay la yeesheen madaxweyne Zelensky iyagoo u sameeyay ballanqaadyo cusub oo taageero military iyo mid diblomaasiyadeed isugu jira si Ukraine isaga caabiso duulaanka Ruushka safarkan oo kii ugu heer sareeyay oo madax Maraykan ah ku tagto Ukraine tan iyo markii uu Ruushku ku soo duulay 24 February waxaana loogu talagalay in lagu muujiyo taageerada joogtada ah ee Washington xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay intii lagu guda jiray safarka Kiev in diblomaasiyiinta Maraykanka ay todobaadkan ku laaban doonaan dalka Ukraine sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in talaabadan ay tahay fariin adag oo midnimo oo ka timi maamulka Biden Ruushku wuu guuldaraystay Ukraine way guulaysanaysaa ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka xilli uu warbaahinta la hadlayay Putin oo u jawaabay ayaa yiri Maraykanka iyo xulafadiisa waxay ku guuldaraysteen inay kala qaybiyaan bulshada Ruushka oo ay ku burburiyaan gudaha xogayaha arrimaha dibadda wuxuu sheegay in isaga iyo sidoo kale xogayaha difaaca ay tareen ka raaceen koonfur galbeed Poland kuna tageen Kiev oo ay kula kulmeen madaxweynaha waddankaas iyo saraakiil sarsare oo kale oo Ukraine ka tirsan muddo 3 saacadood oo ay joogeen qasriga madaxtooyada Kiev xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka waxa uu sheegay inaysan la kulmin shacabka ama aysan booqan qayb ka mid ah dalka oo uu dagaalku waxyeeleeyay xogayaha ayaa sidoo kale u sheegay dadka reer Ukraine in Maraykanka uu siin doono 713 milyan oo ah maalgelin military oo loogu talagalay Ukraine inay isku difaacdo iyadoo loo dirayo sidoo kale hub iyo rasaas la mid ah nidaamyo casri ah oo ay isticmaalaan xubnaha NATO ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa booqday dalka horaantii bishan saraakiisha ku sareysan midowga Yurub ayaa sidoo kale booqday Kiev oo ay kula kulmeen hogaamiyaha waddanka Ukraine Kiev waxay u muuqataa hadda inay helayso xeelada iyo taageerada muuqata ee reer galbeedka oo markii hore dagaalka ku kaliyoobay iyaga oo kaliya balse hadda gacan military ayaa u imaanaysa xulafada reer galbeedka oo sida muuqata diidan duulaanka Putin